ساكا ورقبتين با waxaan ku maqnaa safar gobolada Jamhuuriyadda Somaliland intii aan maqnaa sida ka warqabteen waxa dhacday in ciidankii golaha joogay la bedelay Arbacadii oo ciidan cusub oo aan goluhu ogeyn sida ka warqabo la keenay ciidankaasi waxay ahayd haddii ciidan la keenayo mas'uuliyiinta golaha lagu soo wargeliyo baryahan waxaan ka warqabnuun ciidamo si khaldan loo isticmaalo oo dadka shacbiga iyo saxaafadda iyo madaxda axsaabta iyo dadka ganacsatada intaba loo adeegsado iyadoo hawlo kale in loo samaystay oo ay ka mid tahay argagixisadu ciidanka tirada golaha la keenay waa 40 sida sheegayo waxa kaloo caawa markii aan imi la xaqiijiyay in 400 oo kale oo ciidan ah ugu yaraan oo badidoodu ku jiraan ka soo horjeedka baarlamaanka oo ilaa 250 ay yihiin araariyo la diyaariyay si hawlgal inqilaab oo loogu talagalay inuu baarlamaanka ka dhaco oo lagu fuliyo hawshaas waxa kaloo la go'aamiyay sida wararka noo xaqiijiyeen in 4 habeenimo ka bilaabma dhammaan wadooyinka soo gala golaha wakiilada la xidho si loogu diido laga horjoogsado in shacbiga taageeraya golaha ay dareenkooda muujiyaan iyo xitaa xildhibaanada intii aan la doonin malaha laga horjoogsado soo gelitaanka golaha wakiilada waxa kaloo wararku sheegayaan in xitaa askarta ila socota aan loo ogolaan doonin inay golaha ay soo galaan waxa kaloo iyadana la xaqiijiyay in TV qaranka iyo saxaafadda dawladda mooyaane inta kale aan loo ogolaan doonin golo furmaya berito si loogu talagalay hawsha ugu horeysa goluhu qabta markuu furmana waxa weeye in la sameeyo ajende ajendahana loo qaybiyo golaha ilaa ajendaha la ansixiyo sida sharcigu yahay hawl kale baarlamaanku ma qabto wasiir ma ansixin karo washin lama keeni karo hawl kale ma geli karo marka ajendaha la ansixiyaan baa wixii business goluhu leeyahay la qabtaa laakiin si la sheegayo maqlaysiin baryahanba waa loogu talagalay in motion la keeno waxaana ka warqabteen heshiis guurtida ku dhexdhexaadisay golaha oo aanan motion la keenin muddaxileedkan intuu dhamaanayo taasi waxay jabinaysaa heshiiskii guurtida oo buri doona haddii taa la keeno oo ay noqon doonto xeeladaadkii goluhu inuu markaas shaqayn doono oo wixii oo ahaa in 5 lagu ridi karo gudoomiyaha haddii ilaahay ka dhigo wadanka xisaabe badan baa iga haysa kursiga ku fadhiyo waxa igala qiimo badan badbaadada Somaliland horena waan haddana waan ugu celinayaa shacbiga iyo ummadda reer Somaliland xukuumaddii inooga mas'uulka ahayd amniga in iyada amni darro ay sabab noqoto waxay la tahay arrin lagu farxo maaha waxaan shacbiga ku baraarujinayaa in xukuumaddu ugu tala gashay in inqilaab aan sharci ahayn uu ka dhaco golaha berito marka shacbiga iyadoo inuu ammaanka wada ilaashanayno waxaan soo jeedinayaa in dareenkooda iyo taageeradoodaba ay isla garab taagaan golaha ay doorteen golaha wakiilada xukuumaddana waxaan ugu baaqayaa in faragelinta laga daayo golaha wakiilada ama baarlamaanka oo laba hay'adood dastuurku simay oo aan midna mid ku duulin laakiin askartii qaranka inuu adeegsato caburinta saxaafadda ay ku haysay oo kale golaha wakiilada oo ay qabsato
oo ciidan keento oo intaasoo ciidana sabab golaha loo keeno wadooyinka loo xidhaa ma jirta bay ila tahay shacbigana waxaan ugu baaqaynaa berito inay dareenkooda muujiyaan xukuumaddana waxaan ugu baaqaynaa in arrintaa ay ka noqoto iyo faragelinta golaha wakiilada gudoomiyaha lagu weydiiyo in sida ka warqabto in qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliland in kuwa iyagu maxaafidka in waxay doonayaan inay keenaan mooshin ka dhan adiga in horena waa tii lagu heshiiyey inaan qofna mooshin laga keeni karin madaxweynaha iyo adigaba in maxaa isbedel wala sooran karaa wax isbedel ma jiro waxay la tahay dhinac ugu dhaqaatay heshiiskii la heshiiyey inuu burburiyo waanu cad yahay dhinac burburiyey waa dhinaca xukuumadda xildhibaanada waxaan rumaysanayaa inaanay mooshin wadin laakiin mooshin xukuumaddu wado oo xildhibaanada qaar ku khasabtay oo la soo tahriibiyey ayay rabaan inay golaha keenaan meel marayaana waata gudoomiye waxaa jira in nimanka waxaad baxday gobolada bariga Soomaaliland in xubno ka mid ah xukuumadda Soomaaliland waxay ku weydiyeen inaad bilowday olole iyadoo la gaarin waqtigii lagu talagalay in la sameeyo ololaha xisbiga ka tirsan tahay wadani in arrinkaas waxa kaga jawaabaysaa olole maana bilaabin laakiin waxaan xaq u leenahay kormeeridda iyo wacyigelinta xisbiga ee gobolada kulmiye uu tagaa maalin walba abel sheegay in sabti tagayaan gudoomiyaha kulmiye iyo madax kale ay gobolada u baxayaan meen oran karnaa madaxweynuhu markuu marayay sayid cilaal asqoray oo loo ku jiray waxay la tahay arrintaasi arrin sax ma aha xisbi kastaana xaq u leeyahay saddex xisbi qaran gudoomiye su'aashaydu waxay tahay maadaama la bedelay mudanayaal ee la bedelay askartii golaha ciidan 400 aad sheegteen in xukuumaddu diyaarisay arrintana ay ka soo horjeedo heshiiskii guurtidooda ku dhexdhexaadisay tallaabooyinka caynkaasiya waxaad adigu u dhigaysaa oo ku macnaynaysaa inay tahay sida hadalka ku dartay inay tahay inqilaab golihii la inqilaabay marka hore heshiiskii oo la burburiyey ayaa meesha ka muuqata haddii heshiiska la burburiyeyna wixii xeere ka horreeyay heshiiska ayaa sharci noqonaya waa xeeroosaadka golaha wakiilada haddii la ka dhigo ta kale waxa weeyaan xukuumaddu waxay ku talagashay berrito inaanay xeer hoosaad iyo dastuur iyo sharci midna aanay ku dhaqmin sababtoo ah golaha xaq uma laha inay ciidan keento ciidankii la keenay laga qaylinayay mid 10 jeer ka badan haddana inay keento weli waxa la sheegayaa ciidanka asluubta iyo ciidanka xoog ciidanka qarankuba in heegin la geliyey oo ciidanka asluubtuna ay ka shaqeyn doonaan baanka ilaa baarlamaanka inta u dhaxaysa ciidanka qarankana iyagana la howlgeliyey oo heegin ku jira marka taasi waxay tusaysaa quwad aan loo baahnayn in loo adeegsanayo golaha wakiilada taasi waxay ku imanaysaa inqilaab la qorsheeyay waayo intaasoo ciidan waxaan uga baahanay golaha wakiilada inay tagaan